marka jabhadda markii lagu dhawaaqay in la aaso oo Soomaaliya oo dhan loogu baaqay in la furo jabhaddaas la furayo oo maxaan ku raadayay laysu yimi shirkii Addis Ababa lagu qabanayay oo dadka yimi annaga ugu badnay siyaasiyiin iyo ciidamada annaga ugu badnay dadka gobolada Puntland degan ayaa ugu badnaa marka waxaa marka timi shirka soconayay 1 ilaa 8 Febraayo 79 soconayay waxa weeye marka ergadii marka uu dhayo wixii shuruuc ah nidaamka la soo dhameeyay baa waxa leeyahay marka in shir gudoonkii yaa madax noqonaya laga dhigo dadku waxay haysteen war badan been fikirtoodu ma gaadhay waxa yar iska aaminsan mooto waxba iska jahaysanaya annagu jabhadda siyaasiga markii Nairobi lagu tashanayay in Soomaalidu isugu yeernabay Soomaalidu cid lagu qanco loo dhiibto lana halgamo oo halka ku shuruud la'aan noqdo cid wadaysana cid kasta oo Soomaaliyeed ka soo bixi karto oo loo garto loo doorto in loo dhiibo marka waxa dhacday marka waxa yimi 5 nin oo odayaal ah oo beeshan hawiye ah oo hadda aan magacooda ka xasuusanahay Australian iyo Shandiinle iyo dhowr nin oo kale xagga waxa yimi Mustafa Xaaji Nuur iyo Maxamuud Cayraanshe walaalkii iyo Caawi la yiraahdo iyo Ali Togdheer ayaa yimi iyo rag kaleeto marka waxay yiraahdeen niman yahow ida aamini mayn haddii aydan aad bahasha ka rabtaan jabhaddaas la furayo aad ka rabtaan wax socda inay noqoto waa in aanu madaxdii idinkoo jooga meesha ciidankiina iyo siyaasiyiin badan annaga madaxnimadooda lagu aamintaan hadday wax Soomaaliyeed tahay la doonayo in la dhiso waa lagu aamintaan madaxtinimada hadday wax Soomaaliyeed ka dhab tahay hadda idinku is doorataan idinkaas doortay idinkoona ma jiro waaye wadba loo dhiibaalay marka Mustafa Xaaji Nuur ayaa laga bilaabay gudoomiyihii jabhadda inuu noqdo labo Cumar Xasan Maxamed oo Cumar Staranliin maayirkii magaalada Muqdisho ahaa oo nin abgaala ku waa laga dhigay 3 Shandiinle oo isagoo nin gobolada dhexe ka yimid Cayra ayaa laga dhigay Cabdullaahi marka afraad buu noqday oo maxaa ku awalba arrimaha ciidamada la xijinayo noqday tabaashaas aan isaga horno anagu u hornay iyadoo bilow aan kaligeednahay oo 12 nin oo heliso dadka u haysta nimankan maxaan ku raadayay waa xukun jecel yihiin xukun horta nina madaayin cid walba waa jecesha weli indhahayga aniga ma aan saar xukun cidna laakiin haddaan jacayl naga tahay markaasaan oran meesha la imaada oran cid la imaada aad xukuntaan la ciidii ma joogtaa oran anagoo kaliya xoogayga tabarta iyo dhamaystiray ayaan ogolaan in la xukumo si aan u gaarno yoolka aan socono saasay ku asaasantay markii labaad muddadii in yar kadib 6 bilood kadib waxa dhacday Mustafa waxa golihii ku eedeeyay inuu fadhiyadii iyo hawlihii sidii active-nimada laga rabay eedeyn baa loo soo jeediyay Mustafa Xaaji Nuur haddii ay eedii muddo socotay markaas waxa dhacday in
in maaragtay mustafa markaa la bedelay oo golihii dhexe markaas ay go-aamiyeen cabdullaahi yuusuf markaa inuu noqdo si ku meel gaar guddoomiyihii noqdo 7 beri kadib in aan ka badnay ayaa qoladii Ethiopia jabhadu la shaqeynaysa waxay maya isbedelkaas nin kale haddii ninka wax qaban waaye nin kale keeno idinka yeeli mayno idinka inaa meesha inaad noqotaan hogaamiyihii annagoo tixgelina duruubtaas salayba uga baydheen cid kale keeno waa see yeelaa waa dib baa loo shadshaday wax aan yeelno maadaama aan gurigoodii joogno innaguna aanu soo doonanay sidatan aynu kusoo doonanay aan cid kale keeno markaasa waxaa guddoomiye waxaa loo magacaabay loo doortay cumar xasan maxamed cumar israliin ayaa loo doortay cumar marka xasan maxamed wuxuu yidhi dhegeysta anuu odayaan ahay dadka oday soomaaliyeed baana wixii fiican baa ii fiican intaasoo soomaaliyeedoo isu timi anuu aan 10 wiilo aniga gidfadeedii aan ka heli karin ciidanka jira ma dhici karaysa inaan ishortaago dadka dhimanaya aanu ogolaanaya ay ishortaagaan iyaga sidaasaa marka Ethiopiankana naga diideen in guddoomiyada la magacaabo cumar xasano 3 sano isagoo ah guddoomiyaha ah uu Nairobi ku joogo cabdullaahi kusime guddoomiye oo ah uu ku joogay ya kusime guddoomiye ilaa 83 bishii saddexaad cabdullaahi kusimaha guddoomiyaha ayuu ah cumar wuxuu maba dhici karto maye anigu ma ahayn inuu jabtay qaybana Soomaali soo shaqo dadkan ma arkaan dadka intaas tiro looga soo xaadiray nimanina u joogin meesha ma xukumay dameerkaygu ima siinayo allahuna xasan aad u qaaliya baa ninka maxamed cumar oo oday Soomaaliyeed oo rasmi ah haduu jiro jeetiya 3 horaanteedii bishii Mars ayaa cabdullaahi dib waxa loogu doortay guddoomiyihii SSDF markaas dib loogu doortay waradii bidixdan ay ku soo biireen waxa markaa ku soo biiray rag bidixda oo joogay oo qaxwaan quraada laba xisbi oo kale jihadii hogaaminaya ninka Cabdiraxmaan Caydiid iyo Saciid Jaamac oo dhawaan dhinta Allah naxariisto Saciid Jaamac aad u qaaliyo ahaa yaa ku soo biiray marka anaga waxaan raadinaynay balaarinta jabhada markasta in la balaariyo horta taas waa soo maray tan kale oo aan soo maray waxay ahayd annaga haddaan ahayn qoladii jabhadii ugu horeysay furtay wixii yimaado Soomaaliya marka jabhad kale inaanay furin Ethiopia wixii xoog yimaado saan isu kaashano inay ku soo biiraan jabhada furan haddii rabaan shirguddoon noqdaan hogaamiye noqdaan ninka uu buka waan siinay nin alla ninkay qanciso inuu madax noqdo hogaamiye waan siinay marka iyagu mararkiisa la soo gilgelayay qodobka miskeed way anagu waxaan raadinaynay mujtamac mucaarad oo midaysan oo Soomaaliyeed inuu markaas dawladda Soomaaliyeed wajaho dawladda Soomaaliyeed inuu confrontation dhex maraya Soomaaliyeed oo inay aysan reer ahayn SNM baa timi marka SNM baa timi waxa loo midoobi waayay waxay soo jeediyeen haddana lala fariistay oo aan u bandhignay barnaamijkii way fiican tahay laakiin idinku way is urursateen idinku waa is urursateen oo waa dhisantihiin annagu weli maanaan dhismin aan dhisano oo is urursano oo markaan dhisano markaas aan midowga haynoo dambeeye waayo annaga haddaan idinku biirno hadda dadkina yeeli maayaan oo niman qolo dhisanaad ku biirdhay baan noqonayna laakiin haddaanu annagu gooni isu taagno dadkii gacan baan ka helaynaa iyo dhaqaale baan ka helaynaa marka gacanta iyada dhisankeena ku jireen barnookaadiyo intii muddo aan isdhisan ayay ahayd arrintooda markii hore laakiin markii dambe markii aan dib isugu noqnoqonay warayna midnimada wadajir baan ku goyn karnaayay gacmo wadajir baa ku gooyaan marka haddaad dhisanteen aynu isu geyno
waqti bay ku qaadatay inay taas nagama ay aqbalin nagama aysan aqbalin oo ay ku adkaatay waxaa u muuqanaysa inay goonidooda ahaadaan anagu haddii ka foqi waaya inay goonidooda ahaadaan marka ma aanan khasbi karayn marka taasna saasay ahayd SNM intay koraysay iskaashi ciidan baanu siinaynay howlgallo wada jiraan la shaqeynayn baan sameynaynay ciidanka xagga siyaasadana baryihii hore intuu joogay ninkii la oran jiray Sheekh Yuusuf Cali Madar wixii hadda waa ka kaashanaynay koosaar muddo waxoogaa gumeel gaar ahaa way ka kaashanaynay intii dambe xataa adigu uu noqday ninkii la oran jiray Siilaanyo ayaa ku xigay way iskaashanayeen iskaashi fiican baan lahaa xagga militariga iskaashi fiican baan lahaa howlgallo balance ayaanu meelo isku dhow aan ka sameynay mar ciidanka iyagu waaba la howlgalayba 80 iyo magaranaysaa labadii aakhirkoodii intii aan dhisan ciidan dhan oo Cabdirasaaq Xaaji Cumar magaranaysaa oo Cabdirasaaq Cumar Xaaji wato ciidamada laga qaaday oo markaas ciidankayga in baa laga qaaday marka si iyaga howlgalkooda loo xoojiyo aniga baa ciidankaygu leeyahay oo ciidankaan ka diray markaas waxaan joogay dogob baan joogay frontiga dogob ayaaba oo jiib ayaa lagaga qabsaday meesha iyo ciidamada Soomaaliya iyaga wixii dhex marayay marka formal guud oo iskaashi ayaan lahayn waana soo caawinay intii tabarteeda sida wixii awood ku saabsan